maamadii qambala fadhada qoo suuxdabo haba suuxdabo عجائب ومامada markay suuxday markay soo naaxday ay waxay aragtay oo qofkii indhaheeda ku oo qabto Allahu barakaatu iska soo laabasho wanaagsan in muddo ay kadib muddo baan isarkin toddobaadii ayaan filayaa laakiin muuqaalka haduu ku soo gaaro waxaan ka codsanaynaa lana la gareeso noo sheeg gareeso taasi waxay naga caawinaysaa in uu muuqaalka meel dheer u gaaro waa iga codsi hadaba waxaan soo qaadan doonaa qiso cajaa'ib ah oo waxaad leedahay dunida ma aysan ka dhamaanin dadka daacadda ah waa markaas ku leeyahay wixii aan soo arkay waana la yaabay qisadan waa qiso yani qof walba oo muslim ah ama qof walba in bil aadan ah waa qiso wax badan oo naftiisa kusoo ka faa'iideysan kara waa hadaba qisadan qiso dhab oo ka dhacdo waa dalka India haweeney ama maamo wiilkeeda xanuunsan yahay oo isbitaal u kaxeynayso ayay qabsatay maamadani waxay qaadatay bajaaj hadaba bajaajka markay qaadatay oo isbitaalka u socotay ayaa waxay qabsatay dhacdo la yaab leh oo markay aragtay la fajacday ee aamin weysay xitaa maamada waxay raacday bajaaj markay raacday isbitaalkay aadaysay ayaa waxay la kulantay arrinkan oo ah bajaajkii qaateen maadaama wiilkeedu oo qaliin oo gal lahaa oo aad u xanuunsanaa oo ku balansanaa maanta inuu qaliin oo galo bajaajkii qaateen isbitaalka markay tageen ee meeshii qaliinka uu galay waxaa lagu dhahay lacagtii oo qaliinka soo bixi hadaba dhageyso lacagtii qaliinka soo bixi haweeneydii markii lagu dhahay boorsadeeda fiirisay way aweysay sababta maamada markii bajaajka ay ka dageysay boorso wadatay boorsadeeda ma aysan qaadan way iska baxday wiilkeedii xanuunsanaa xanuunkii ma qadab batal ma yaqaano way iska baxday isbitaalka gashay markii lagu dhahay lacagta qaliinka soo bixi boorsadii ay soo xasutay ee tiraahdo oo bixi maxaa u dhiibatay yaa wax u dhiibato waa maamadii qaraacan heer waxay gaartay in ay suuxdo inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun heer in ay gaarto inay suuxdo sababtoo ah waa hooyo wiilkeeda ka xanuunsan yahay haddana qaliin oo galay hindida naxariis ma yaqaan qaliin kale nahi batahay nahi jatahay alawla lacagta ma bixisa ma bixiyaysa gartahay alawla hore u soco lacagta bixiyaysa ma qaliin cid ku sameynaysa malaha maamadii qambala fadhada qoo suuxdabo haba suuxdabo cajaa'ib maamada markay suuxday markay soo naaxday ay waxay aragtay oo qofkii indhaheeda ku oo qabto wuxuu ahaa ninkii bajaajlaha ahaa oo kor taagan oo waliba lacagti soo wado Allahu akbar oo lacagti gacanta ku haayo cajaa'ib maamadii way kala babadatay xitaa waxa leeyahay ninkaasi waa uu diiday lacag ay siirto xitaa ma uusan ka qaadan sababtoo ah uu kor taagnaa ilaa ay soo naaxaysay runtii qisadani waxay ahayd qiso la yaab leh sababtoo ah bajaajle oo awoodo lacag 100,000 oo geni oo waxa waaye indida ah uu qaadan karo oo iskala tagi kare ahayd laakiin in insaan oo sawirkiisa halkaan oo saaran yahay waa aragtaa nin garkii heybada ka muuqato waaye insaanimada muslimnimada ka muuqato waaye haddana ogaameen istaan imaaday oo lacagta maamadan ay u baahan tahay haddana ay u baahan tahay fahmi kare ما شاء الله عليه الله أدسين أجر حسن الله كسيو وأنت واحد وناسون سميه ما أنت دنيا داعد نمضي وكذا ما أنت بكل ولاية تاسو كله تواي ما أنت قف سمينا يمي ويرتاح بقولك بقول كن $1 بقول كن جنيه هلا أو كل واد العكس لا بقول $1 ده كل $1 واي أو ما كيلا صرفه أو هلا الله بس كده تجا وحوق قاعدين ماما استارو سعته lacagtan u baahan tahay arinkii meeshu soo aadan oo ogyahay ilaahna waafajiyo inta la joogto ku maasantaa la joogaaga waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka noo sheegayso taasna waxay naga caawinaysaa inoo meel dhow la gaaro maasali